الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، waxaynu sodhan doonaa kelimaad kooban in sha allahu tacaala oo ku saabsiisan nolosha tan miisaanka alla u dhigay subxaanahu wa tacaala in lagu qiimeeyo. laqad arsalnaa rusulanaa bilbayinaati waanzalnaa macahum alkitaaba waalmiisaan. rabbi wuxuu ina leeyahay subxaanahu wa tacaala, rusul baan soo diray iyagoo bayinaad wata, caddaymo wixii caddaynaya inay rusul yihiin, mucjizaad. maxaa lagu soo diray rususha? alkitaabu walmiisaan baa ilaahay tilmaamay. kitaabka iyo miisaan nolosha lagu miisaamo. casrigan dambe dadka waxaa aada uga lumay miisaankii nolosha gebigeedba. haddii bulshada waxay wax ku qiimaynaysaa uu lumo, mafaahiimtu ay qaldanto, noloshoo dhan baa qaldantaa. dadka waxaa ka qaldamay xaqiiqatu dunya maxay tahy, adduunku muxuu yahay, dadnimadu maxay tahy, insaaniyad iyo bini aadamku muxuu yahay. way luntay. waxaa dunida hogaaminaya wuxuu filosofkii faransiiska ku tilmaamaya nidaam tafaaha. faransiis oo filosofa kanadiyan u dhashay ayaa kitaab qoray la yidhaahda nidaamu tafaaha, nidaamka liidashada, wax la-aanta. yacni dunida dad madhan baa hogaaminaya buu leeyahy. waa nidaam madhan. taafihi waa shayga xaqiirka ah, waa nidaam xaqiiroo liita. nidaamkani wuxuu lumiyey markaa dadnimadu maxay tahy, maxaa wax lagu qiimeeya. wuxuu dadka u raray in madaahirta, muuqaalka in wax lagu qiimeeyo. dadku u wada mashquulsan yahay, wuxuu ku mashquulsan yahay qurux wax la yidhaahdo. qof isqurxiyey, gabadh isqurxisay, quruxdii dunida loo lamayo. markay bini aadamka dhaafeen bay xayawaanka loolansiiyeen. nimanka gaalada agtooda maanta shooyaal la qabtaa laleeyahy rida dunida u qurux badan. markaasaa niman soo fadhiisanayaan oo sifaynayaan, indhaheedu say u eg yihiin, afkeedu siduu eg, waa ri. yani waa markay noloshu wixii wax lagu qiimaynayay uu lumo. noloshu muuqaalka maaha, sidaad u eg tahay ma aha. inaad madowday, inaad caddahay, inaad fool xuntahay, inaad fool xumayn ma aha. walidaalik ba anas ibnu malik wuxuu leeyahy waxaa jiri jiray saxaabadii nin ka mid ahaa oo la odhan jiray zaahir. saxaabiga kan zaahir la yidhaahdaa, zaahir ibnu alxaraam, wuxuu ahaa baa la yidhi nin aada u fool xun. marka quruxda iyo waxa bini aadamku ay sheegaan, nin aada u fool xun buu ahaa oo reer miyiya. nebiga calayhi salaatu wasalaam buu baadiyaha intuu ka yimaado hadiyad u keeni jiray. nebiguna magaaladu kasii taakulan jiray oo ka diri jiray. walidaalik buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi, ina zaahiran baadiyatuna wanaxnu xaadiruun. zaahir waa reer miyiga yagii, annaguna waxaanu nahay reer magaalkiisii buu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam. maalin maalmaha ka miduu zaahir magaalada yimi. nebiga calayhi salaatu wasalaam hadiyadu keenay, isagoo wixii uu sitay suuqa ku iibinayo, suuqii wax lagu kala iibsanayay jooga, ayuu nebigu xagga dambe kaga yimi. isagoo sii jeeda buu sidaa u qabtay nebigu, waanu sii jeedaa. ninkii reer miyigii markaa wuxuu yidhi, war isiida, waa kuma? ma arko markaa ciddan haysa ee xagga dambe ka haysa arki kari maayo. isiiddaa markuu ku celiyey isagoo aan arkaynin, arsilni uu leeyahay, ayuu hoosta ka jalleecay. dabeetana wuxuu arkay inuu nebigi yahay calayhi salaatu wasalaam. markuu gartay inuu nebi maxamed yahay buu isku nabay. markii hore isiiddaa buu lahaa, laakiin markuu ogaaday inuu nebigii yahay ayuu isku nabay. nebigu isagoo kaftamaya markaasi, waa kaftami jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam, walaa yaquulu ila alxaq. waxaan xaq ahayna kuma kaftami jirin.
isagoo haya buu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man yashtari hada alcabd war addoonkan yaa iga iibsanaya buu nebigu leeyahy suuqii bay dhex taagan yihiin xagga dambuu ka hayaa waa addoon ilaahay dadka oo dhami nebigu intuu qabtay buu wuxuu yidhi man yashtari hada alcabd addoonkan yaa iibsanaya zaahir baa nebiga u jawaabay markaa wuxuu yidhi yaa rasuula allahi idan wallahi tajidunii kaasida ilaahay rasuulkiisiiyo wallaan ku dhaartay waa kugu baariyayaa buu yidhi maxaad tidhahdaan alaabta marka suuqa lagaa iibsan waayo way baarixyooday ama way baariday ama way ku dhacday ama waa igu fadhiisatay waxaasay dadku yidhahaan soo maaha alaabaan keeno waa igu fadhiisatay waa kaa bixi weyday wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow ilaahay baan ku dhaartay haddaad aniga suuqi geyso waan kaasid baan kugu noqonayaa buu leeyay waa kugu baariyayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu jawaabo wuxuu ku yidhi laakin cinda allahi lasta bikaasid ilaahay agtiisa mid kaasida ma ku tihid buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay agtiisa mid baariyaya ama mid ku qiimo liita ma tihid buu leeyay riwaayaadka qaarkoodna anta cinda allahi qaalib buu yidhi ilaahay agtiisa qaali baad ku tahay qiimaad ku leedahay xadiidku shamaa'il almuxamadiya ayuu ku qoray waana xadiis saxiixa muxuu tilmaamaya xadiidkani inaanu muuqaalka qofka bini aadamka qiimiisu ahayn dadku maanta maxaad ismarisay iyo maxaad xidhatay iyo maxaad kriimkaad soo isticmaashay iyo baraandkeebaad xidhan tahay maryahaaga ma nike ba mise waa heblaaye mise waa buuma waxaa laga fakerayaa muuqaalka iyo jidhkaagu siduu u dhisay iyo midabkaagu siduu u eg yahay waxay yidhahdaan dhallinyaro badan ba hadda facebook iyo waxa la midi waaleen waayo mid baa photoshop intuu galo oo gacantiisa wax ku sifeeyo ayuu odhanaya halkaasaan joogaa markaasuu kanaan halkaa joogin niyad jabaya kanna waa been meeshuu sheegayaa waagii hore waxay yidhaahdaan qofku notebookiisa waxa uu qorto sir bay ahaan jirtay mudakaraadkiisiiyo wuxuu rabi jiray markuu dhinto iyo meelaha in la akhriyo iminkana qofku wax kasta u qoro intuu meesha ku soo dhigo like-ba layma saarin buu leeyahy lama akhrinin yani nolosha wixii lagu qiimaynayay baa isbedelay oo tawaafihdaa noqday nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy ruba ashcaf madfuucin bilabwaabi low aqsama cala allahi la abara ruba ashcaf la arkay ama badana ama yaraka doontaba dhoo mid ashcafa mid basaasaysan aan feedhnayn oo madfuucun bilabwaaba albaabada mid laga celiya ah aan manaasib iyo magac iyo muuqaal weyn iyo waxay dadku qiimeeyaan aan wadanin laakiin ilaahay agtiisa maxay ka ah low aqsama cala allahi la abara ilaahay hadduu ku dhaarto hadduu yidhaahdo wallaahi saasay noqonaysaa ilaahay uu rumeeyo siduu u dhaartay looga dhigo u fiirso qof markuu dhaarto ilaahay uu rumaynayo dhaartiisa oo sidii ay noqonayso ilaahay agtiisa qiimuhu ku leeyahay intuu leegyahay laakiin cinda annaas wuxuu nebigu ku tilmaamaya inuu yahay madfuucun bilabwaab albaabada mid aan laga furin mujtamacii muslimkee hore aragtiday nolosha ka qabeen markay kaa ahayd bay xadaaro dunida keeneen markaasay horumar keeneen markaasay dunida hormood ka noqdeen markay ku dhaqmayeen inuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam in allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa amwaalikum walakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum ilaahay muuqaalkiina ma eegiyo maalkiina toona taasi alla agtiisa waxba kama aha kan foosha xunlaya kan quruxda badan waxa oo dhan waa sancadii ilaahay midna adugu maad samaynin marka sidaa u egtiin xoolahanina waa xoolihii ilaahay aad dunida ugu timi cerka kamaad keenin adugu meel cusub kamay soo bixin meelahaan umaad ka soo ururisay waxaad xoola haysataan iyo muuqaalkaa leedihiin ilaahay agtiisa waxba kama aha buu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam ilaahay se muxuu eegaa agtiisa qiimo ku leh quluubta waxaa ku jira caqiide iyo iimaana iyo ilaahay weynayntiisa ah aliimaanu billahi wa bilyowmi alaakhir quluubtiinna waxa ku jira iyo dhaqankiinna waxa idinka soo fulaya acmaala idan ayuha alaxiba
المعرور بن السويد كان لا يرادا وحلي وحال لكل ما صحابي اللي odhan jiray abadar oo rabada tuulo yar oo dhow madiina degan oo isaga iyo nin u shaqeynaya midba xulla xidhan yahay xulladu waa isku joog riwaayadka qaarkoodna waxay yidhaahdaan xullu kala qaybiyo kana qayb buu xidhnaa kana qayb buu xidhnaa markaasuu ninkii wuxuu leeyahay maad isku joogga adigu isku xidhatid ninkan shaqaalaha intaad nus siinayso calaa kulli xaal meesha waxaa ka muuqata abudar iyo ninkii u shaqaynaya oo isku mariya sita inagu dee shaqaaluhu waa miskiin yar baynu ka dhignaa hayliyo xidhan ninka guriga lena wuu xaragoonaya laakiin abudar isaga iyo shaqaalihiisa baa isku waxidhan dabeetana su-aal baa la weydiiyey maxaa dhacay baa la yidhi adiga iyo ninkii kuu shaqaalaha laydima kala garan maayo isku mariya sideetaani abudar baa ka jawaabo wuxuu yidhi nin baanu beri ismaagnoo aan caaye dabeetana hooyadii baa ku caaye waxyo hooyada madoobe dhashay baa ku yidhi markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi yaa abadar acyartahu biummi waar abudarow ninkan ma hooyadii baad ku ceebaysay innaka mra'un fiika jaahiliya buu nebigu yidhi waxaa tahay nin weli dhaqamadii jaahiliyada wax ka haysta halkii lagula rabay maad soo gaadhin buu nebigu abudar markaa u tilmaamayay miisaankaad wax ku qiimaynaysaa weli madow iyo caddaan iyo xoolo iyo waxa kana waxaan ilaahay agtiisa wax lagaga qiimaynin sida daraaddeed buu nebigu wuxuu ku leeyahy innaka mra'un fiika jaahiliya waxaa weli kugu sugan wixii qabla alislaam dadku ku dhaqmayeen wax ka mida war dadkani buu nebigu ku leeyahy ikhwaanukum khawalakum jacalahum allahu taxta aydiikum waa walaaladiina oo ilaahay gacantiina soo geliyey ee ninkii walaalkii uu la joogo shaqaale u yahayow falyuطcimhu mima ya'kul waliyulbishu mima yalbas war waxaad cunayso wax ka mida isna sii hambada ha siine waxaad cunayso wax ka sii waxaad xidhantayna wax ka huwi waxaanay awoodi karinna ha ku kallifin haddaad waxaanay qaban karaynin u dirtana adiguna la qabo nebigaa sidaa igu yidhi buu yidhi xadiiska bukhaari iyo muslim ku yaalla idan waxaan leenahay miisaanka wax lagu qiimaynayo ma aha madaahirta kaa muuqata maradaad xidhan tahay iyo sida muuqaalkoogu u eg yahay iyo gurigaad ka soo toostay intuu leeg yahay iyo waxaad qiyaastaa nebi maxamed oo gurigu ku tukanaya uu ku jiray isaga iyo xaaskiisu ay ku jireen markuu sujuudayo oo cagta ka qajidhan iyo cagaa ka laabanayso waa meel aan laba qof wada mid tukanaya iyo mid hurda wada qaadin ayay u muuqataa innaga qol fadhaa la yidhaahdaa mid hurdaa la yidhaahdaa mid soogal baa la yidhaahdaa mid waa lagu qubaystaa mid waa lagu waxaa laga yaabaa ka innaga musqushaynoo ah inuu ka weynaa guryihii saxaabada haddana kuwaasay ahaayeen kuwii dunida wax ka beddelay sida awgeed miisaanka dadka lagu qiimeeya ama nolosha lagu qiimeeyo ma aha inta aad adduun iyo xoola haysato su-aal labaadaan keeno saxaabi baa jiray julaybiib la yidhaahdo julaybiib waa tasgiiru jilbaab julaybiib waxay yidhaahdaan nin gaaban oo fool xun waan xoola haysan buu ahaa yacni wixii dadku ay wax ku qiimaynayaan qurux male dharar ninna le ma aha hanti nin haysta ma aha saasay ku sifeeyaan julaybiibkii nooca ahaa buu nebigu ku yidhi war maad guursatid julaybiiba maad guursatid markaasuu yidhi oo yaa aniga gabadhi siinaya yaa gabadhi siinaya nabiga calayhi salaatu wasalaam madiine saxaabada joogtay cid waliba waxay jeclayd inuu nebiga la xidido oo gabdhaha reeraha ee soo koray nin waliba wuxuu jeclaa inuu nebiga kula xidido dabeetana reer ansaartii ka mida buu nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam maalin yaa fulaan zawijnii ibnatak hebelow inantaada ii guuri ama inantaada isii haddaynu tacbiirkeenna inagu isticmaalno inantaada isii buu ku yidhi wuu farxay ninkii nebi maxamed oo gabadh ku weydiistay nacam wa nucmaa caynin buu yidhi haa yani waa ku siinaya waaba nucmaa cayn waa mid ili ku doogsato in nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam xididnimadiisa aada hesho
dabeetana nebigu ninkii wuxuu ku yidhi innii lastu linafsii uriiduha anigu naftayda u dooni maaya buu yidhi nebigu calayhi salaatu gabadha waa kaa doonaya laakiin anigu ma ihi qofka naftiisa u doonaya qaala faliman oo haddaa ilaahay rasuulkiisiiya yaad la rabtaa buu ku yidhi qaala lijulaybiibin buu nebigu yidhi julaybiib baana inanta u doonaya ninkii markaasuu dib uu yaro fadhiista dabeetana wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow debel inanta hooyadeed aan la tashado inanta hooyadeed aan la tashado inanta hooyadeed baa loo tegey wuxuu ku yidhi nebi maxamed baa inantii inaga soo doonay iyana sidii si leeg bay tidhi nacam wa nucmaacay markaasuu yidhi lafihiisa u dooni maayo nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasay tidhi faliman yuriiduhaa haddaa inanta yuu inoo weydiinaya waxaa lagu yidhi wuxuu inanta u doonayaa lijulaybiib ninkii julaybiib la odhan jiray ayaa gabadha loo doonaya islaantii waxay bilowday xalqaa bay tidhi xalqa waa min xalqa waa xiristi waa ba'ayay oo kale iyo jabayay iyo hoogayay da soomaalidu tidhaahdo oo kale weeyaan islaantii waa waraanay iyadu filayninba ali julaybiibin bay markaa ku xigsiisay ba'ayay iyo ma julaybiib baaba maanta la ii wadaabay islaamtu leedahay waaba dhaaratay laa lacamrullaahi laa uzawiju julaybiiban ilaahay baan ku dhaartay julaybiib anuu gabadh iska siin maaya bay islaantii u booday odaygii dee islaanta warkeedii arega markuu is idhi kac ayaa gabadhii hadashay oo xagga dambe fadhida hadasho waxay tidhi man khatabanii ilaykuma ooyo yaa ikiin weydiistay waxaa lagu yidhi ilaahay rasuulkiisa waxay ku tidhi ma ilaahay rasuulkiisa warkiisaa celinaysaan inta nebi maxamed idin yidhi gabadhi siiya ayaa odhan doontaan ku siin mayno idinku nebiga igu wareejiya waxaan hubaa inaanu nebi maxamed ay dayacayn bay tidhi idfacunii ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi waali wasalam fainahu lan yudayicanii nebiga igu wareejiya bay tidhi nebigu i dayici maaye odaygii iyo islaantiiba inanta warkeedii waa ka farxiyo waa aqbaleen dabeetana nebigii buu u tagay calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi sha'nuka biha fazawijha julaybiiba gabadhii waa ku siinay ilaahay rasuulkiisiiyo wey u guuri julaybiib iyo ciddii aad doonaysaba nebigu calayhi salaatu wasalaam julaybiib buu gabadhii u guuriyey riwaayaadka qaarkood waxay tilmaamayaan inuu duceeyey wakti yar kadib baa dagaal dhacay dagaalkii bay muslimiintu galeen dabeetana waa la islaayey dad muslimiina baa la dilay markii dagaalkii dhammaaday ee cid weliba meydkeedii urursanaysa iyo dadkii maqnaa la tirinayo ayuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam tafquduuna min axad waar cidna ma idinka maqan tahay waa la isbaadhbaadho kolba hebel baa maqan hebel baa markii dambe waxa la yidhi cidima maqna reerihii magaca lahaa dee raggoodun baabay tiriyeen dabeetana waxaa la yidhi cidima maqna nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi markaa lakinii afqidu julaybiiban war anigu julaybiib baan la ahay buu nebigu yidhi ninkani ilaahay rasuulkiisa qiimahaasu ku ag lahaa inuu u guuriyey maantana marka la dad tirsanaya ayaa geeriyooday reer waliba leeyahay waa joogaa raggayagii nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy anigu julaybiib baan la ahay ee fatlubuuhu fi lqatla bal dadka la dilay ka baadi doona julaybiib baa la baadi doonay waxaa la helay isagoo isna dhintay oo la dilay 7 gaalna ay ag yaalliin 7 dilay markaasay yara dileen aakhirkii aqatala 7 ثم qataluuh hada minii wa ana minhu buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ma 7 dilay markaasay dileen buu nebigu yidhi kaasi hada minii wa ana minhu buu nebigu leeyahay kaasi anuu iga tirsan yahay anna isagaa ka tirsanay kaasuu nebigu tirsanaya uu leeyahay isku koox baanu nay waa fool xun iyo waa gaaban yahay iyo hanti mala iyo nebiga hagtiisa waxaasi maha wuxuu ragga ku qiimaynaya raggu tirsanayo ee uu baadi goobayo muuqaalkoodu siduu u ekaa iyo gaabnidoodu intay leekayd iyo hantiday haysteen intay leekayd maaha wuxuu wax ku qiimaynayay u fiirso ninka nebi maxamed ku leeyahay hada minii
وأنا منه تضرب jeer buu ku celceliyay bay riwaayaadka qaarkood leeyihiin dabeetana madaxu gacmihiisa u dhigay intii laga aasayay nabi maxamed baa madaxiisa hayay sariir kale iyo rarab kale loo dhigay ma jirin ee gacmaha nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa lagu hayay intii godka loo qodayay ee la aasayay oo dhan ilaa uu qabriga ka dhigay nabigu calayhi salaatu wasalaam ayuha alaxiba waxay tilmaamaysaa حديث إمام الألباني بكسر أروريي صحيح الجنائز كان إمام أحمد بن حبان نوى صارين أصل القصة صحيح مسلم كيف الله وحوت الماما يا نبي الرجو قيمها أكتس كلها نوع هاي يرجع وحي لو قيمين يوحوها موازين تو قلدان تيمك أد وقلدان توايو dadka waxa lagu qiimeeyaa jaahiisa mansabka uu haysto waa caaqil waa sultaan waa wasiir waa madaxweyne waa agaasime waa kornayl waa janan mansabka uu haysto ama jaaha uu leeyahay waa odaygii hebel laakiin raggu nebi maxamed agtiisa kaa kumay qiimaysnayn isagoo fadhiya nabigu calayhi salaatu wasalaam oo nin la fadhiya qola soo martay nin baa soo maray markaasuu ku yidhi man ra'yuka fi hada war bal ninkaa ka warran nin meesha maraya ninkii warbixintay ka bixiyey waa maxay ma taquuluuna fi hada buu nabigu tilmaamay ama man ra'yuka fi hada waxay idhahdeen rajulun min ashraafi innaas waa nin dadka mudan ka mid ah waa nin bay yidhaahdeen hadduu hadlana waa nin la dhegaysto hadduu gabadh ku weydiistana waa nin la siiyo hadduu erga kuugu yimaadana waa nin ergadiisa la aqbala bay yidhaahdeen ninkani annaga agtayada saasuu yahay bay yidhaahdeen wuu iska aamusay nebigu calayhi salaatu wasalaam mar dambe ayaa mid kale soo maray markaasuu ku yidhi ma ra'yuka fi hada bal kana ka warran أما ما تقولون في هذا كان ما يسقى محاورا نيسا وإلى هذا رجل من فقراء المسلمين كان وامد وحما هيستطاع مسلمين تكمل بيد هذا وأنين هدو قبلك ويديستنا على السنين هدو إرقاك وي ما دان إرقا دي سان لا أقبالين ووحي كيه ركا شيغان عكسي سوي كان كشيغان نبي عليه الصلاة والسلام حديثك بخاري كيه الله labadan nin dadku laba miisaan bay kala saareen mid miisaan bay saareen ashraafu nnaas inuu ka mid yahay waxay saareen inuu yahay nin loo guuriyo hadduu gabadh ku weydiisto oo hadduu hadlo nin la dhegaysto oo hadduu erga kugu yimaado nin ergadiisa la aqbalo ka kalena waxay saareen nin masaakiinta fuqarada muslimiinta ka mid oo aan waxba mudnayn dadka agtiisa aan waxba ka ahayn نبي محمد عليه الصلاة والسلام أكتس سيدي كي نبي مركز وحيري هذا خير من ملء الأرض مثل هذا كان أيضاً إذن لليتا أي وحوك خير بدن يدريد مجدو كان ما هكذا ما كان كخير بدن وحويا دريد مجدو نوعنا نكنا الشيء يسان دريد أردنو لقبوحيي وحاسكو دامه ننقره ninkan oo qura dhaama buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam yani miisaanku ma aha buu leeyahay hadalka iyo magaca iyo mansabka iyo xoolaha iyo waxaad sheegaysaan ma aha miisaanku buu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam dadku markay madhaan ee muwaasiintu lunto casrigan aynu hadda joogno feedha buurnidaaba la isku qiimeeyaa sooma tidhaahdaan waa six pack ninkani lix wasaladood buu caloosha ku leeyahay morocco iyo siduu u feedha buuran yahay ama uu traininka u cayaaray waa kuwu sheekh maxamed qutbi odhan jiray waa cujuul bini aadama buu yidhi waa dibiddada ilaahayna qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay kuwa munaafiqiina isagoo ka warramaya waidaa ra'aytahum tucjibuka ajsaamuhum baa ilaahay yidhi haddaad aragto jidhkooda iyo weynida iyo qaabka iyo xoogga iyo say u eg yihiin waxa ku cajab gelinaya baa ilaahay yidhi jidhkooda laakiin
ولما وإن يقولوا تسمع لقولهم بالليل أي هذا لنا وركود ودقي سنسا لكنهم حيين إلهي وقت الماء كأنهم خشب مسندة لوح لتيريي بين لم يديهم بالليل وإلهي كتاب كيسي قري لتيريي يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يفكون إلهي وقت الماء يقول وينين أنا ألا أكتسى قيمك لهي منافق بين قلف وينان كرو قيامها نوى كنبي قلت المامي عليه الصلاة والسلام يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة قيامها وحلكين يا مدوين وبورا وحوق له إلهي يكتيسه قرب كان يعلم ميسانها بالليل كان عين تيلكت مركه هرياني قرب معين كان على سي قيبيي oo baalkeed la soo qabtay baal kaneeco alla agti miisaankiisu kuma aha marka saaleeyay hadda rabtaan waxa akhridaan fala nuqimu lahum yawm alqiyamati wazna akhir miisaan baqwa lama saaro looma taago ayuha alahibba ali ibn abi talib wuxuu yiri nabiga alayhi salatu wassalam saxaabigii la oran jiray abdullah ibn mas'ud oo geed koray oo wax ka soo qabanaya ay saxaabadu eegeen abdullah ibn mas'ud waa maqashan Soomaa waa saxaabadii cilmiga caanka ku ahay laakiin muuqaal ahaan aad u dhuuban oo mijadhuuban oo tamar yar buu ahaa dabeetana abdullah ibn mas'ud oo geed koray oo wax ka soo goynaya ayay dhudhumadiisii dhuudhubnaa arkeen markaasaa la qosqoslay fadhaxiku min xumuushati saaqay ay min diqatiha adima dhuudhubnidiisa raggii bar ku qosleen nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu weydiiyey ma tadxakuun war maxaa ku qoslaysaan للرجل عبد الله أثقل في الميزان من أحد صحيح الأدب المفرد بكون أدن كايرة في قرية كوقص شاب النبي قولي إلهي أكتي سبورته وحدوك علسيه وبورنا أنا أحد لا يلاهضه ومدينة أكتي قطالة بورته وحد إلهي أكتي سوحكا علس النبي قلت الماما يا محي رجل عبد الله أدن كولي هي عبد الله بن مسعود أيها الأحبة قيمهم معها أبترسينت يرير كات كدلتي سيدي مقعوا لهايين reer hebel baan hoolaan dheera oo qolada ka dhashay tira badan oo fara badan ayaanu nahay ilaahay agtiisa waxba kama aha dadka ayaa u nasab fiicna nabi maxamed soo ma aha hadda nabi maxamed oo dadka ugu nasab fiican ayaa ilaahay kii adeerkii hela dhashay yiri tabad yada abi lahab wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab haduu nasab waxtarayo أبي الهب واحتري لهذا سواء كما هذه رير بان كذا شيء وانين هاشمية أو قريشة أو كنانية مضر كابتر صدا والله يقارنه ابن كثير وحليه أبي الهب وحلوه بحيبة وضاء دلال كوتشيس يقرح الدراد أي اللوجو بحيبة ولا يمرك هربا لكن قرح ضايع دلال كاي ريركا وكذا شيء وحبا ما يترين إلهي وحكوت المامية سبحانه وتعالى تبت يدا أبي لهب وطب قعمها أبي لهب هوغي يا أبي لهب هوغي با إلهي سبحانه وتعالى أيها الأحبة إلهي وحين لي سبحانه وتعالى إن آدم كان أبو ري أنا شعوب يا قبائل كدغاي شعب كلا قديسن كوين دير كوين دواوين كوين دا جحجحن أنا صاو أبو ريبا إلهي لي وخلق الله عندنا يدو اسمي سماينين وسيدوني اسمي سماينين وإلهي سن عديسي لما أنتود قبائل كدغاي محال لو كدغاي يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا بإلهي marka hore aabiyo hooyo quruma ku abtirsataan ama indha waaweyna ama indha yar yarow
أما عضاء وهو أما عين كان هو أسل قلوب وذلادي عد مالك على لقى كان يمشرته عد مالك على كتمي مشرته أسل كلية يا وذلادي بإله إلهي سبحانه وتعالى أنا شعوبية قبائل دين كدقي محل يدين كدقي بإله إلهي لتعارف الناس كو قرطان أنا ترى نين رير هبل وين هبل واقع تذكرنا ما هذا يمد قرا وضح الله هيدا ما بيننا كلا قرنين لكن واحد نكو كلا قرنين أيوة رير كليين يا مقعي كليين يا مدب كليين وللمعرفة لتعارفوا بالين أما مركز النقطة قيمه مركز النقطتين إنه ميزان كتت كساره ما هي نكو صارينا ما قالوا كذا شيء ما إنه عادي ما إنه مدوي ما يعني إلهي وحلي إن أكرمكم عند الله أتقاكم وحيدين كل شرف بدن بالليل الكريم ابن الكريم وحا أكرمكم عند الله الأكتيس وحيدينكم مضن إذنكم ماموسا كينا لو وعبس بدن مركزا إلهي ولبو حلي إن الله عليم خبير إلهي ومد وحق وقال بدن وخبرت بدن ولبا إذن كلا قرنيا ألا أكتس وحكي جوكتان أيها الأحبة نبي عليه الصلاة والسلام قال أنتم ما كفرتي ما قريش بدقنيت ودتك إسكوينين السي وورك السي وين دتك حرمك الله دورتي يهين وحتى حجك دتك هلكي وكسو وعنا يعرف دي اللي تجي يدانقو مني قوليا هلكا ددك كلا تagee anagu halkan sokay un baan ka soo laabanaa xarabka kama baxno ayu nabi maxamed la hadlay alayhi salatu wasalaam markuu furtay wuxuu ya ayuha an-nas in allaha qad adhaba ankum ubiyyat al-jahiliyya wa ta'azumha bi abaiha wardado ugu nabigu leeyahay alayhi salatu wasalaam ilaahay wuxuu idinka kaxeeyay كبرك إيه إسلويني دي جاهل نمده يا أبا كفانكي فالناس الرجلان تاسوا وحي جاهلية دوالا غبحي تدقوا الله بأمبو النبي عليه الصلاة والسلام مثل دي حد مجره تدقوا الله بأ ولا بديه رجل بر تقي كريم على الله متسم فله والله كدور صده وإلهي أكتيس الشرف كله كريم على الله مدواكا ككلنا وامحي وفاجر شقي هين على الله بالنبي متفاجرة وحما السماين بدن شقية وهين على الله إلهي أكتيس كليته إلهي أكتيس مقعية ما مستونا كلهين والناس بنو آدم وخلق الله آدم من تراب حق أبترك هدين الله يدنك أنا دي آدم مبكى وضعت ما دين آدم نردوبا لك السماء ابن النبي عليه الصلاة والسلام دي أبترك إن الله يغانا نوع عسى ودتين هدي قيمه إن الله يغانا لبضا سنباته صفة كلمة شفته رغان نماضو وحلقوا قيمة يقفكوا انتو دين تيسا حيستو waxaa lagu qiimeeyaa inta aanay muqriyaadku waxyaabahan bini aadamka gagadiya inta aanay gadinin sadaradeed baa ilaahay wuxuu leeyahay min almu'miniina rijaal mu'miniinta rag baa ka mid ah rujuuladan in la sheegaya waa kuwee sadaquu maa caahadu allaha calayh waxay ka run sheegeen ballanka ilaahay u qaadeen laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah markaad tidhahda ballan baad gashay waa kuwa ballankaa ka run sheegay baa رب إليه سبحانه وتعالى فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا قارنا ساسي كوغيري يودين قارنا تشتكي هيام بوال لله سبحانه وتعالى رغني مواطا ضدك إلهي أكتيستا كل شرفت لي حقا لقاها حقا يشوغان إلهي وحلي في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال الرجال كوا كريماشا لغا هلا وقريها إلهي سبحانه وتعالى قريها الرب يليها الله كوريالو
وإلهي سبحانه وتعالى هلغو حسابك عيسى هلغو كوريالو كوا كو كوريالا يوأيو يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال فاعل غدك رجال با إلهي وقو التصبيح سيقالين هوريا قالين دبابا رجال كان صفاته ذو محيتي لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله إلهي وينيديسا يعب سيديسا كما مشغول الصه بالبركة أدونكو تجارة يا وحيبسك يا وحكا إنك عكسك واربر صلاة هيدا بيسورتا وحي دافا يا بعد ذا فرصة ويني لكن كوا كان إلهي وحكو صفين أين يهين محي الدنيا ما مشغول السبا إلهي لي بيع هي التجارة كما مشغوليا إلهي حسكي هي صلاة وقستيدا هي الزكاة بحستيدا وأيوه يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار أيها الأحبة والرقد ذا الكود ويهي إني حقا اللي أعرضان أدونك مركا لقا ورما يوحى لني فامشوا في مناكبها اسكا صعدوا إلهي أرساق دي سرات سيدا بالي أما حق الذكر القرآن مركو كورما يو وسابقوا يصارعوا فاسعوا إلى ذكر الله وأرضى ففروا إلى الله حق عباداتك هي الدين تمرك لقا ورما يو قرآن تعابيرتا أرض واستعمالك يدقدق ورك حقك كان ماشي ربان إنه هرو قادان أي تحي أما أدونك مركي شوكتو فامشوا في مناكبها بالليل اسكا صعدا ورق إلهي كنت المام يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله يا إذن مشغولين يا إذن مشغولين عروري يحول يباب كان إلهي حسكي يا إذن كمشغولين با إلهي كنت المام المال ما كم يدون يبقوا حكوا إلى الصحابة استحيوا من الله حق حياء حق الحياء إلهي كحشود حشودك وحق ليه قال يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله وارك حشودان الله بيدا إلهي رسولك سيو إلهي بانا مهدى اسكاله قال ليس ذاك أنا وارك الشيء يا كما هب النبي لي ولكن الاستحياء من الله حق الحياء حشودك أن تلمام أيو إلهي حق ولي لقى حشودا وكم النبي لي أن تحفظ الرأس وما وعاه مضح يوحو السيدة إنا دلالسه مدح محو السيدة دقو اندو عرب سن وحبو السيدة كوا إنا دلالسه حارانتك إلى السيد دكتادية الشادية أفكاقية وحاقاس إنا دلالسيد والبطن وما حواه علولي يوحي كوريكسن قلبي ودنا يوحي لم يدبا إن هذا الالسه وحكى لولدي ولتذكر الموت والبلا وإن حصوصته جيردة يا بابا حبالنا تجلس أدونك وما الماء ير أدو كوبان ومالمو hadba maalinta joogto baad la nooshay dareemadeeda qabta laakiin shalay dareemadii ha kugu soo noqon maayaan ma bayna noolaaneen wixii maalmi horeyna soo maray hadaynu wali dareensanay oo wixii mashaakil iyo cadho iyo dhib iyo wareer kugu dhacay haday kaaba tagi waayaan saacad kasta xasuusanayso wad waalan lahaydba laakiin waa ilowna wixii shalaynu soo maray wuxuu doonaba ha noqdee maalinta aad joogto markaasi uun baad la warwar tahay haddaba xasuusta baa la yidhi geerida iyo baabaa dambe waman araada alaakhira taraka ziinata addunya baa la yidhi innagu waxaynu u dhimannayba waa quruxdii adduunka warninkii aakhira doonaya tan dhaldhalaalkeeda waa iska ilaabaa buu nebigu leeyahy ninkii aakhira doonaya dhaldhalaalkeeda waa iska mubaax haddaanay xaaraana ku jirin laakiin maca daalik dee wixii cimriga iyo wakhtiga lagu bixin lahaa maaha sidaa ogeed buu nebigu wuxuu tilmaamaya waman araada alaakhira taraka ziinata addunya faman facala dalik
faqad istaxyaa min allahi xaqa alxayaa ninka sidan yeela buu nebigu yidhi war ninkaasaa rabbi ka xishooday xishoodkuu rabbi xaqu lahaa subxaanahu wa tacaala ayuha alaxiba raggu waa kaa iyo ninnimada iyo dadnimada iyo insaaninimada waxay sheegaan cumar ibnu lkhadaab oo rag la fadhiya maalin wuxuu ku yidhi tamanow waa bal nin walowba wax yidi diilo maxaad jeclaan lahayd mid baa wuxuu yidhi waxaan jeclaan lahaa gurigan muggiyo dahaba intaan helo inaan ilaahay jidkiisa u bixiyo horta u fiirso saxaabadu say fakarayeen raggaas wakhtigaa noolaa maaha intaan helo inaan fooqaqa dhisto ee wuxuu leeyahy intaan helo inaan xaggee qabadsiiyo ilaahay dartii inaan u bixiyo cumar baa haddana ku celiyey tamanow bal ku noqda mar kalena hadda waxaa jeceshii sheega atamanaa low annaha mamlu'atun lu'lu'an wa zubarjadan wa jawhara anfuqhu fii sabiili illahi wa atasadaqu bihi baa haddana yidhaha wixii unbay sii badiyeen dahab qudha inaanu noqone british stoniska oo dhan dhagxantan qaaliga ah oo tiro badan waanu ilaahay dartii u bixinna bay leeyihin uma qaala tamanow waar haddana buu yidhi bal ku noqda qisada imaam alxaakim baa soo aroorinaya mustadrikiisa sanadkeeduna waa xasan bay culammadu yidhaahdaan ku noqda buu yidhi bal hadda mar kale waxay dhahdeen garan mayno amiirulmu'miniinow wax kaloo aanu yidi diilanno cumar wuxuu yidhi walakinii atamanaa rijaala mila abi cubaydata bnu ljaraax wa mucaadi bnu jabal wa salim mawla abi xudayfa wa xudayfata bn lyamaan faastaciinu bihim calaa cilaa'i kalimat illah anigu waxaan rajaynayaa waxa aan tamaninayaa buu leeyahay anigu waa rag maada maaha waxaan rabaa buu leeyahay dahab iyo dhagxan iyo waxaa maaha waxaan doonayaa buu leeyahay inagu waxaynu dhahnaa haddii dhaqaalo la helo noloshu way fiicnaan lahayd war haddii rag la helaa bay noloshu fiicnaanaysaa raggaa dhaqaalaha sameeya waxa kanaad sheegayso dad markaad hesho ayaad horumar gaadhaa dhaqaalo qudha hadduu yahay dadku waa ku baaba'aa muslimka ayaa ka dhaqaalo badan yaase ka dullinimo badan dhaqaalay heleen daara cirka ku jiran bay heleen isugu faanayaan daarta dunida ugu dheer baan dhisayaa mayata ugu ballaadhan baan dhisayaa mee magaalada ugu dheer dunidaan dhisayaa magaalo iswada daba taxan oo gebigeedu waa intaan oo kilomitr laakiin sidaa u dhisan oo cirka ku tahay tareen baa dhex ordayaa la yidhi 5 daqiiqo koona ilaa koonaad ku gaa waxaasi ka fekerayaan guriga u dheer daarta u dheer magaalada u weyn dayaaradaha u waaweyn waxaa maaha nolosha waxaa horumariya quality-ga bini aadamkoo la bedelo dadka mawaasiintooda iyo mafaahimtooda iyo waxay ka fekerayaan iyo siday wax u arkayaan oo bedelma nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam shaqadu qabtay waa taa muu qabanin inuu yidhaahdo barwaaqo iyo xoolo badan baynu keenaynaa iyo nin walba qasabad caaniyo biyaabaa loogu rakibayaa guriga cidina uguma rakibin rag bay ahaan maalina wax cuna maalina qada laakiin rag buu sameeyey rag saa daraaddeed cumar markay qoladani xoola sheegeen wuxuu yidhi anigu xoole uma baahniye waxaan rajaynayaa inaan helo abu cubaydata bnu ljaraax ninkuu nebigu ku tilmaamaya amiinu haadihi lumma ama mucaadi bnu jabal waa nin dhallinyaro uu nebigu ku tilmaamayo aclamu lmuslimiina bilxalaali waalxaraam ninka ugu aqoon badan muslimiin xalaal iyo xaaraan ama salim mawla abu xudayfa ninkuu cumar lahaa hadduu nool yahay isagaa khaliifo uga dhigi lahaa muslimiinta ama xudayfata bnu lyamaan saaxibu siri rasuuli illaahi sala allahu alayh waali wasalam raggaasaan anigu rajayn lahaa buu leeyay kuwaasoo kale inaan helo waan ilaahay dartii u adeegsada markaas iyo diinta tan inay kor yeelaan idan ayuha alaxiba ragannimadaa cumar kala qiimo badnayd macdan iyo jawaahir iyo dahab iyo wax la helo innaga waxaad mooddaa wixii noo dhamm inay ku soo urureen in xoola la helo nebiguna wuxuu tilmaamay inama annaasu kalibili lmi'a laa takaadu tajidu fiiha raaxila dadkani waxay la mid yihiin sidii geel boqola oo neef la fuulo laga dhex waayey waa markaa la qiimo beeladee waa marka rijaalkii la rabay dadka laga dhex waayo
boqol halaad oo wax laga fuulo laga waayey ayay la mid yihiin buu tilmaamaya rajulku kuf ah ayuha alaxiba warwar adduun baa dadka haya guri weyn ma haysatid lacag badan ma haysatid waxaan ma qaban kartid waa nidaamu tafaaha filosofka faransiiseed wuxuu sheegaya uu yidhi nidaamkii tafaahadu waa shay taafiha liidashada dunida kuwa xoolo badan baa ugu taciisaysa ugu liita maanta kuwa ugu isdilka badan leh waa iyaga kuwa ugu xashiishada cabka badan leh waa iyaga kuwa noloshooda intay raalli ka ahaan waayeen qof bini aadam oo dhowr boqoloo kun oo dollar intuu isku qalay raba inuu bisad u ekaado miyaad aragtay oo intaasoo qalliina loo sameeyey si bisad loogu ekaysiiyo qof bini aadama miyaad aragtay oo intuu bini aadamnimada raalli ku noqon kari waayey raba inuu ey noqdo xadhig lagu xidhoo la wato oo afarta addin ku socda qof bini aadam oo sidii ilaahay u abuuray intuu raalli ku noqon waayo yidhaahda qof dumar ah layga dhigo xoogaagan iga laalaada inta goysaan meel jeexan ha lay sameeyo qof bini aadam oo sidii ilaahay u abuuray intuu raalli ku noqon waayo yidhaahda labada naas ha layga gooyo nin ha layga dhigo ما هم مساكين تضدك وحن سمينا ينتبضن وعلية القوم نرش عدنا يالن ويدي معنى يالن ويدي وحي استلا طبقات كسرية وبدين هذه نرش إيمان كله ما قيمة ماله قيمة كوية لما يسوق عنت هذا وحكو شره ضربان لا يهلك كتاجن حبس ما يسوق إن الدار الذي إن البول لا ضحي أديك ومبات اسمع دانتو لكن مسلم كذبتها استوى حيتي السجي بابو حسيد بس صعدا مد اسم ميزان كله مي إن دولا هجا يكور مد إن دولا وشاعن كله هذا ترى أي نكان دبا قلو يعني دول نلش كله دول كلهم ما معنى الحياة بالقرن لاي ما معنى الحياة نولش محيتي نولو وحسكعون دم محيتها هي بيلي نولش محيتي نولش ما كآخرية إلهية وحكو حرام تبي معنى لاضي لكن قرن وايه وحلون نولي هيبا وحميش اللو تشوف البروفيسور أنين أرديو وحكو يلو مسلمة أي سؤال لسوق هذا مركزوه حولي وأنا ندرركو كده أيوه وأنا بروفيسور سؤال يروح سوق ورمسته فسوه حولي وأنا العجا أنا وحبكو فلين وما هالكاسة كوتشرتي ما كوسيابو كيلي يعني تنا إنه نجوح يقنا يسووا وكده عليه وأيه وحجرون وأيه وحي معنا صبينش وحي معنا والصبين يسانو قرنين أيها الأحبة عهدي كان dadka majarihii baa ka habaabay marka darsigeegani wuxuu ku kooban yahay war majaru iyo wada ka habaabine wixii ugu qaalisanaa baa haysataan oo diin xagga alla ka timiyo hidaayadii rabba haysataane iyada qaata oo waxay idin sheegayso sameeya oo yaan daarahan iyo guryahan dhaadheer idin muuqanin وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين